lafta gareen aniga waxaan qabaaba waa xishoodaba waxbuu xeeriyay ilaan waa madaxweyne waxaan rabaa lafta gareen intuu ka tagay bal aniga iyo ummadda Soomaaliyeed bal inaan qaadaa dhigno hadal heynta ugu badneed ee baraha bulshada maanta waxay ahayd khudbadii lafta gareen ee ahayd qabiil dhalashada ka saari kara Soomaalinimada ma jirto qabiil shahaadada haysta ma jirto ya waxba ka runa moogta marka waxaan rabnaa lafta gareen who is next marka madaxweynaha ma qorqor baa xiga macali guudla baa xiga axmed madoobe de wiligiisu dhiirnaa moogta siyaasadda intii aan naqaanay positionkeeda waa ka gudubta horta Soomaaliya soo dhawaada intaanan guda gelin lafta gareen iyo waxyaabaha hadda meesha lafta gareen uu joogo waa de darbigu soo taabtay shirka golaha wada tashiga qaranka ma imaan doonaa ma dani teamkiisu ku biiray xaaladda waa meel halis bay maraysaa waa dul istaagayna si cadaalada qabyaalada inta halkaas iska dhigna qaran baa la joogaa waxaan waa national issue Ethiopian Egypt Kenyan afaaraha waa lagu jiraa markay doorasho imaado waxaan waa qarankii Soomaaliya marka waxaan rabnaa caawa si qaan gaarnimo ah inaan u qaadaa dhigno oo baashaan fadhiisino intaan u guda gelin marka lafta gareen muxuu ka xishooday lafta gareen maanta waa daawateen de waa boodo odayga tareenka waa ka dhacay iyo ka tagiyaa iyo isagaba stopka intuu ogyaa iskaga tagay ma naqaan de annaga laakiin tareenka waa ka degay casasha lafta gareen ma boosko ka aqli yaraya booska barre adeer xasan talo waa ka wareertay been haddayna fiicneen talo waa ka wareertay sideedaba qofka iska soo horjeedin siyaasadda haddaad dili weys asaa ku dilaa micnaha dhaqanka siyaasadda saas waaya lafta gareen muxuu ka xishooda marka barnaamijkeena ku laabanaynaa anigu waa cabdiqaadir boos studio waa Nairobi barnaamijkan waa barnaamij xaq ah share love iyo like waa idinka Soomaaliya special raxweyn way caawa balaan aragna wadooda soo dhawaada lafta gareen muxuu ka xishoodaa isweydiinaysaa lafta gareen wuxuu ka xishooday nacayb loo abuuraayo beeshiisa macnaha ay aflagaado raxan weyn digli mirifle waa gumaysta raac waa daba dhilif waxaas oo dhan waa aflagaado lafta gareen wuxuu ka xishooday in gudoomiye gobolka Banaadir Madaale igaarkii mataqaan yabo ahaa ee $100,000 ku bixiyaan odayaal dhaqameed si loo yiraahdo waxa caysaan raxan weyn oo dhan oo shiiq leh oo shabaab leh oo hooyo leh oo imaam leh oo siyaasi leh oo ahlu jannah ahlu naar leh macnaha iska wada caay asaga waa sameyn kar lafta gareen wallahi ma sameyn waa ka xishooyin taas inuu sheego ana wuxuu ku soo koobay qabiil dhalashada kama saari karo waa taas I agree with him waa ku raacsana taas aniga war habeen dhaxdaas hadda daawateen anuu tuutayga xirna gaal jacayl waxaan dhahay digli miriflow gaal jacayl ka leexda qadiyada hawiye iyo karaamada hawiye ilaalinaya عاونا قضية الصومالية إلى لنا ما أقبل كرا أنا عبد القادر بوسا لأن باسبور هوية ولانديرا ما كنا مجرى أو لانديرا أو كنا في كرانية ما من دارو ما مجرى من دقيقة في المجرى قرن لما ذمر كلمات قبيل أن أقولها إنه يقول الميشات كقرن مجرى أنا ما نيجي تاسني سيدا حالي هبين دحدا سجال جعل وقرب تاجنا بهدر حوينا در وقرب تاجنا هم كان حوك قرن كالله يا رايا راح وين إجافة iyo ayda madaxdooda iyo xildhibaanadooda iyo waxay qaldamo waa gaar moogta in dawladda dhaqaaleeda lagu bixiyo lafta garab ka xishooy anaas idii sheega wallahi maxay tahay cadaaladda ilaaha jecel dulmiga ilaaha iska reeb moogta iska dhaaf ilaaha dulmiga ka xishooda macnaa uu dulmi ani nafteeda ka xarimada aniga nafteeda iyo tanhawiye dulmi waa ka xarimaya dhalinyarada hawiyo way hadii raxweyn la sii jiido oo la sii riixo intee tagi karaan دربيجي تجايا وراح دعوتين دتكي رير باي بكول مال قصبي قفك قانجار كوينو فكرة إثيوبيان بالجو دتك سيدي ربان بوهال كران لفت جري هذا دعوتين واجي هور حرصنا كورميا مربو يريد يتاجين بعيد إثيوبيا دوغ جويس ملها راوين ما استاهلان إلا السي أفلقادية أو مدحت الدولة اللي لعجا كوب بحيان أفلقادية إيجافين تطقنك السياسيين تا أصل كراوين نفا doorashada iyo khudbadii maanta lafta gareen inta soo harto raxweyn iyo hawiye ku digtoonaada hadii si socotana raxweyn de waxay noqon doonaan ogaada yaa kilinka lixaad noqon doonaan diyaar ma u nihin Soomaali kala jabta diyaar uma nihin qaranka naga dhaxeeyo cid wadaniyad ka xigto wallahi ma jirto intaas ugu gudbaa oday hawiyen waa ogaada taas ay taan I love you hawiye taaganaanay
haddana dulmi kama qaadanayo intaas waa lafta gareen horta xasan sheekh maxamuud alla kaftamay adeerka siyaasad ma hayo jimcahaas hadda lafta gareen waa loo jawaabi doonaa masaajidka ayaa bamba inkastoo sheekh shariif diiday lafta gareen aniga waa horta siyaasad markay imaado nin hadda la sii daayay oo la fasaxay oo xoogeystay oo teesta ka dhalanaya oo ama teesta kugu dilay aan lama yaabay sideedaba siyaasadda asahan ma laha ninkaas waay doorasho isaga uu u madax banaan yahay buuna qabsan doonaa ma heli doonaa taageerada ee koonfur galbeed ma heli doonaa waa su'aal haa wuu heli doonaa muxuu ku heli doonaa lafta gareen nin 8 sano sii joogo horta beeso ugama shakisna inuu weysan yahay ilaa siyaasadda beesto marka lumut waxa la yiraahdaa trust jira siyaasadda ninkan wuxuu samaystay qorshihii dani muxuu ku soo laabtay dani nin Usmaan Maxamuud oo garowe 2 jeer double muxuu ku yimid hartiyow ka hawiyana naab xasan baa la diriraya ha ii jabinina campaignkaas ugu soo laabtay kana hadda campaignkaas baa loo abuurameyna laakiin hawiyuhu ma fahamsana raxan weyn kasto si kasto guddiga doorashada si kasta u soo sameeyaan ama si kasto loo faragishto maba aha ciidamada Itoobiya weestaay waa guuleysanayaan naceebkan uu ku guuleysan doona ogaada loo abuuray raawiyo aniga nin siyaasadda muddo ku jira waxaan ahay nin weyn oo way soo jiraan ah ilaa 7ka wiil wal baasha hadda ina fahamtiin al raamugta xawil muxuu ka hadlay naceebkan hadda la abuuray madaali iyo yabaha lacagta ku bixinayaan iyo xasan sheekh maxamuud raxan weyn uu baa lafta garan ku soo cisho doontaa iga qora iga qora wallahi intaas waa intaas doorasho markay imaado marka amniga logic ma tahay inuu doorasho qabsan karo maxaa macquul ah marka inuu guuleysanayo waa cadda odaygiya boos soo buufiina wallahi isdina oo billaah daacadiga taa wallahi ani marka xaqa dadka xaqa ku shaqeeya baawur basiino ku shaqeeya mid nafta ani xaqa ku shaqeeya lafta gareen Ethiopia joogta baay bakool hadda maanta loo qeybad imaadaba oo xuduudda 100 kilomitir u jirta ciidamo Soomaaliya awood loo beedhaba ka degi kara ma jirade amniga Ethiopia la wareegaysa dhaqaale waa haystaan naceebna oo abuurteen dadkina banaankii u soo bixi doonaan baashar saasay ugu cadaanay intaas waay ku sii dheeraan meena baasha waa socon doontaa masaajidka dhiman kadib falanqeynta boosa dhiman baasha iska dhameyn maayo yaa xiga marka waxa xiga rag badan oo madaxweynayaasha maamulada ama qorqor ha noqdo ama cali guudlaaw ha noqdo ama axmed madoobe ha noqdo ama mid kale ha noqdo in ay ku dhiiran doonaan sida lafta gareen waa la isku daala moogta sababaan waa idin sheegi doonaa lafta gareen oo derbiga istaagay oo heerkaas luqad noocaas ku hadlana waxay cayilinaysaa dani oo awal bas sibar ahaad sanbaab oo sii noqdaa lafta gareen kuwa hadda tilaabada uu qaado u jeeda sameyn doonaan lafta gareen cayili doonaa asiga laftirkiisa hadda garab noqday waa faantay Soomaa baasha meel xun bay maraysaa maxaa marka waxaan oo dhan u sababa marka in lafta gareen bixo inaan dani lahaynin in la kala sheekaysan yahay waxbaa in sheega wallahi alcadiim waxaa u sababa oday xasan sheekh maxamuud oo aaminsan cid iga caqli badan aniga ma jirto cid iga wasiirsan ma jirto cid iga ra'iisul wasaare ma jirto cid iga dhoof badan ma jirto cid iga caqli badan ma jirto cid iga beesa badan ma jirto adeerkay reer Allah siiye cid ka fiican oo ka caqli badan oo ka kaarta badan oo ka atooreysan oo ka liidharsan ma jirto oo ka safar badan oo ka xabs ma jirta ku dhax marka dadka Soomaalidu waxay dhahdaa dadka ninka ugu il dheer baa ifka ugu ayaan daran moogto maanta dagaalka shabaab ma hayo madaxda maamul goboleed ma hayo dastuurki ma hayo doorasho cad ma hayo maxaa wuxuu gaadooyaa marka nimankaana maxay la fahamsiiyeen xasan wuxuu gaadooyaa nimanka inuu mandate ka dhamaado ayagana intay mandate ka dhamaanin leeyihiin oo haduu qorsayar ku qabto raamut markuu mandate ka wada dhamaado oo hal mandate uu soo jiray sharciyada hebelow nakab ayagana ka macaqlayr adeer soo degdeg aan leeyahay soo degdeg haddan doorasho qabsanaa sax waliba dad badan galmudug ka baqooyaan mugta Hirshabeelle meel ka fool xumaa doonto oo ka ceeb badnaa doonto ma jirto habeen kale ay falanqeyn doona baashaan Nairobi aan joognaa Europe lama joogo shaqo wax lagu mashquulaa ma jirto wax uun baa fariisinayna habeen walba marka step marka bogeyga Cabdiqaadir Boos like sar bartan YouTube kana sidoo kale ku soo bir idin ka mixid halkan xaalku waa qasaya marka yaa cid
فيري لفت كلمات بحيري ودنيته عدنا جحك تمجر شهادة أديك أنا بيج كان يوتيوب كان عد كاحك تمجر تنيو كولستا باي باي